خلدميان قفك خلت كجلنا كوكسو نقطة أولو نكسم بالنبي عليه الصلاة والسلام مرجع إن شاء الله بإذن الله تعالى وحرجينا إياه وحرجينا هنا قبل ما استعمال شانو أيضا كنا إن شاء الله يعذر دارتان هذا الرجل sida daawada muuqaalka hordhiciisa ka soo aragtay waa daaci Mukhtaar oo qaladkii uu galay oo raaligelin ka bixinayo si aan kula wadaago fadlan nagu soo biir oo asxaabteena ka mid noqo adigoo janaalka subscribe dhahanayo gambaleelkana u furanayo muuqaalkana like tala dhacayo wixii fikirkaaga ee commentiga noola wadaag daaci Mukhtaar oo live soo galay bartaysa TikTok uu ku leeyahay qaladkii uu galayna uu raaligelin ka bixinayo maadaama uu qalad sameeyay uu qori qaatay uu dagaal asiga lagu ogeen uu galay iyo uu agjugleemo iyo muuqaal uu ku bixinayo in uu dadkiisa u dagaalamayo oo baraha bulshada aad u qabsaday oo dadkoo idil ay ku qabsadeen dadka badanaana ay ka bixiyeen ficilo aad u xoogan ay leeyihiin daaci Mukhtaar kuma ogeen dagaal sheekh wacdiye ayuu ahaa ay dagaalka maxaa ku qasbay iyo waxay su'aalahaas lagu haystay daaci Mukhtaar oo hadda live soo galay oo ka dhaadhiciyay dadka Soomaaliyeedna cafis weydiistay iyo qaladkii uu galay in uu bini aadan yahay uu qaldoomay oo hadda kadibna qori iyo wax balaaye iyo wixii la sheegaba in uu dib dambe laga daba maqli doonin oo haddana qoriga iska dhigay ay dan iyo ciil iyo caro ku qasabtay maadaama dadkiisa la baabi'iyay darteeda uu qori u qaatay sidaas uu ka dhawaajiyay laakiin hadda oo bini aadan qaldoomay uu yahay qaladkiisana uu dib ka ogaaday in uu qalad ay ku ahayd in uu qori qaato ama qori uu qabsado laakiin hadda kadib aysan dhici doonin in uu qori qaadan doonin asigana laga maqli doonin qori iyo wixii dagaal ah kaliya dadka Soomaaliyeed oo waanadooda qaatay iyo hadalkii dadka Soomaaliyeed maadaama ay ku ogaayeen in uu wacdi jiray oo shiiqooda uu ahaa laakiin bariyay ugu dambeeyay qori iyo dagaal iyo markay ku maqleen ay baraha bulshada idil aad hadaladiisa ay u qabsatay kadib hadda daaci Mukhtaar oo qaladkiisa qaatay oo live TikTok ka dhex cadeeyay ummadda Soomaaliyeed oo idilna uu ku yiri mar dambe dhici doonto in ay qori qaato ama lagama maqli doono dagaal iyo wax u dhadhow iyo wixii la sheegaba dagaal dambane diyaar u miya haddana qoriga waa iska dhigay ummadda Soomaaliyeedna uu cafis iyo raaligelin iska weydiisanayo iyo live-ka uu ku dhex cadeeyay danta kaliya ku kaliftay iyo cara iyo ciil uu ka qaaday maadaama dadkiisa ay wadaada ahaayeen la baabi'iyay awood loo sheegtay sidaas darteed uu qori ku qaatay danta kaliya ku kaliftayna uu qori u qaatay soo dhawow daawada muuqaal ayaan kula wadaagi doonaa خلدميان قفك خلت كجلنا كوكسو نقطة أولو نكسم بالنبي عليه الصلاة والسلام مرجع إن شاء الله بإذن الله تعالى وحرجينا إياه وحرجينا هنا قبل ما استعمال شانو أيضا كنا إن شاء الله يعذر دارتان هذا الرجل